الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد دمان من تشرفت ماشي جوكتو حاكو سلامي يا سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب هكا ما تحاوسوا استاغي inaan soo jeediyo taariikh nololeedkay inta ku sugnaa muasasada Umul-Qura waxaan la soo kulmay marxalado fara badan insha Allah ku soo dhawaada horta radaan skin baro magacayga waxa la Yusuf Cabdullaahi Xisi waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 2001 waagii Umul-Qura ka hadlo Umul-Qura waxaa ku soo biiray 2010 halkaas ayaa waxaa ka bilaabay waxbarashadeeda qaybaheeda kala duwan Qur'aan Kariimka iskuulka iyo xirfadaha kale sida cilmiga kombiyuutarka markaan Umul-Qura ku soo biiray waxaa la ekay sawirkaan u jeedin oo maanta oo go'aaminta ku jiro waa markii koow inta muasasada inta xarunta loo soo guurin waa ka sawirkaas u jeedin haddana inta la faacay u jeedin alxamdulillah wax badan ay iska bedelay cilmi iyo da'di loo qaybta Qur'aanka hadda ka sii hadlo Qur'aanka waxa bilaabay saharni uu sheegay sanadku markuu ahaa 2010 ilaa maadi waxa ay suurta gashay in aan Qur'aanka dhameeyo sanadku markuu ahaa 2013 sawirkan u jeedin waa markii noo la qabtay Qur'aanka marka dhameeyna xafladda noo la qabtay xafladda noo laga farxinayo waa ka ardaygaas oo calaamad guduud ku jirto oo gadaal taagan aan waaye waa ka xumaa laakiin sawirku u jeedin qaybta Qur'aanka hadda wali ka sii hadlo Qur'aanka marka dhameeyay meeshas kuma ekeen Qur'aanka inta muasasada ku sugnaa dhowr mar aan aqliimiyay ilaa Qur'aanka xifdiyo haddana alxamdulillah ku faraxsanahay waatana shahaadada Qur'aan Kariimka marka Qur'aanka dhameeyay wali gudoonsiin qaybta iskuulka hadda u gudbo iskuulku waxa bilaabay sanadku markuu ahaa 2011 waxaan ku bilaabay muasasada Umul-Qura qaybta maadiga iskuulka qaybta iskuulka anigu ku sii jiro dadaal dheer kadib Ilaahay wuxuu ii suurto geliyay inaan ka gudbo dugsiga hoose waxaan u gudbay dugsiga dhexe sanad dugsiyeedka markuu ahaa 2014 2015 ayaa dhameeyay dugsiga dhexe iskuulka muasasada Umul-Qura وأنا سبنا لقى قاضي مركب حفلة دوسي ده إحنا اللي جاي بحكي جرا أردنا نركز جالها لكن وحوار نحن كجرا قيمة سكول كذا كسي هذا سنة دوسي تمركو هاي لو كن شني تومن لو كل حي تومن وحاب لو دوسي سنة قيمة مادي مؤسسة Umul-Qura إلى مهدي ده اللي ركدي وأنا أنا فصل كي مثلا ترتن كلاقبته أرضي ده أنت وحبرشة كجران ترتمو waxaa la qabtaa sanad walba waxaa la qabtaa tartan ardayda fasalka dhan loo iskuulka fasaladiisa qaybaha kala duwan loo qabto marka waa kana anigu matalayo fasalka waa ka calaamada buluuga sawir ku jiro ujeedin waa kana anigu fasalka fadhiyo safka ugu horeeya arday geeska fadhiyo waa ka sawirkeega waay ujeedin marka inta muasasada ku sugnaa mara waxaan loo jiray dalxiis fara badan sida beeraha afgooye iyo badda jasiira waa kana mar oo beerta afgooye la waday ardayga u horeeyo oo aad ku yar oo sawir ku jiro sawirkeega waa markaan waanu matalay fasalkeega kubadda cagta sawirkaas oo go'aaminta muddo ku jirto qofka lambarka 10 wata aan waaye marka waa kaay hadda ka sii hadlo waxbarashada intaas bisna oo ma ekeen dugsi iyo iskuul labadaba waxaan la bari jiray kombiyuutarka waa kana marka kombiyuutarka bari jirna sawir anoo fasal kombiyuutarka dhex fadhiyo ardaygan calaamad ku jirto nacam soo jeedo sawirkeega waa qaybta iskuulka sanadku markuu ahaa 2018 2019 ilaahay mahadi waxaan noo suurto gashay himiladeena waxaa ka qalin jibiyay dugsiga sare qaybta maadiga muasasada Umul-Qura waa kana sawir laga qaaday markaa shahaadada sanadka hore dufcadii koowaad qalin jibiyay waa ka ardaygaas gadaal taagan oo calaamada buluug ku jirto sawirkeega waa kadib markaan dhameeyay dugsiga sare waxa uu waxbarashada jaamacad
waxaa bilaabay jaamacad kamid ah jaamacadaha ugu fiican muqdisho taasoo ah jaamacadda Hormuud ilaa mahdi had sanadka koowaad ay dhamaad waa kana dhikaarka jaamacadda haddana jaamacaddu inoo xirantaa waxayna furmay bisha 15 insha Allah waxaan u gudbaa semester 3 jaamacadda waxaa ka bartaa business administration cilmiga oo ganacsiga inta kadib marka anoo jaamacadda dhigto oo sanadka koowaad markaa dhimay mu'assasada khayr Allah si waxay qabteen tartan waxay qabteen ardayda u qabanayaan kaasoo loo magacaabayo midowga gudoomiyaha ardayda tartan kadib anaa waxaa kusoo baxay gudoomiyaha ardayda Umul Qura ka qalin jebisay waa kana sawir marka xilki lidii anoo calaam saarayo sawir li saaray inta kadib waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala marka koowaad oo garab noo siiyay inaan wax barano inaan hadafkeena gaaro marka labaad waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteeda sharafta badan waa ka xumaa intii mila joogaan xamray joogaan waa u mahadcelinayaa hooyaday macaan oo taas oo igu dhiirigelisay inaan waxbarashada barto inaan heerka maanta soo gaaro dad hortooda wax ka soo jeediyo waxaa kaloo u mahadcelinayaa maama Khadiija Maxamed oo ah aasaasan mu'assasada Umul Qura aan marnaba imaami karin waayo waxay ii buuxisay bedelka hooyadeeda intaa ku sugnaa mu'assasada Umul Qura waxaan u mahadcelinayaa oo kale maamulina sharafta badan ustaad Suhayb Axmed Aadan kaasoo ah liikar maanta waa beena waayo intaas oo sano wuxuu garab taagnaa ardada wax walba u baahan waxaan u mahadcelinayaa waxaa kaloo mahadcelinayaa marti sharafta meesha joogto sida waxaan ii dhageysteen dhegeysta ii soo amaahayeen inta teknolojiyadkiisa u dhageysteen waa ku farxadeen oo maleynaa dhammaantiin waa